imikana waxaan ku soo dhaweynayaa xuseen wadaad yare oo ah gudoomiye ku-xigeenka dalladda guud ee Somaliland ee Suudaan oo isaguna halkan kelmadihiisa naga oranaya ku soo dhaweeya Saacad waxaan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka golayaasha baarlamaanka wakiilada guurtida saddexda xisbi qaran ee dhammaan xisbiga Milyo Party ee maanta inagu soo sharfay inay naga soo qayb galaan xafladan qiimaha leh ee 24 guurida ka soo waraagtay jamhuuriyadda Somaliland waxaan doonayaa weydiiyo qof jiray 24 sano jiray miyuu leeyahay سمحوك ما سمطابق هذه سومالند وجريسة الدون كورد ما هدو حتى كسو تشستو سومالند وحي نقوليسا تاريخ عجيب أي ديسا تي هراي دكتور محاكم ده إن لهلاي دل لا يراهدو سومالند أفريقيا دهيس كيالا عالم كهقونسن وأفريقيا لباتن سنوات جري هذا waxaa lagu darayaa ajaayibka sideeda adduunka lagu daray waxa maqay 7 ajaayib adduunka waxa lagu darayaa ka sideeda lagu daray maanta dal inta jiray cid aqoonsan cagiis isku taagay waxaan kaloo ka salaan uga dirayaa jahliyada Somaliland ee magaalada Gotobo anigu de horta oday way baan magaranaysaa halka waxa weeye Gotobo marba yahay xaruntii Somaliland warmeen ahayn miyaan ahayn markii aan ku lahayd train station-ka agtiisa xafiiska ugu weynaa Somaliland miyaan sharaxayn ay boor ku qornaayeen 1990kii 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 haddaba maxaa helay youtube imika waxay la mid waxa ka qiimo waxa ka magac weyn magaalooyin yar maxay tahay maanta oo ku faraxsanay inay youtube noqoto ay soo ceshato magaceedii iyo maamuskeedii waan ku faraxsanahay in youtube ay samayso inta waxaan insha Allah mustaqbalka eegaya in youtube jaaladeedii weyneed ee caamka ahayd ee lagu yaqaan ay soo celiso halkan waxay ahayd aan doonay dadka u sheego cusub markii dagaalada sokeeye dhaceen halkii lagu xallibahay meel ay ka ahay Sofia meel ay ka ahay halkan waxay ahayd halkii ugu horeysay ee ay mataqaanay suuq keenay ee bartan laga gurmaday ee laga tagay bahayd magaalooyinka Faysal Waraabe iyo halkan bay yimaadeen bartan magaalada Gotobo ku yimaadeen waxaan gaxaan xasuustaa joornaal ma jirin ba joornaalkii ugu horeeyay jiray waxa la oran jiray aragtida togdheer meelayn aragtida togdheer soo ka mayn aragtida togdheer waxa lagu qoray jiray burco 7 cisho ayay mar soo bixi jirtay waxa lagu soo diri jiray fax wala badin jiray waxaan dhigi jirnay biblioteekada dhigi jiray waayahay halkan waxa kaloo sharaf u hesheen in ay heshaan wadada youtube ambassadorki yani caawa ma arko rooda ambassadorki youtube waxay xaruntii youtube joogtay waxaan kaloo inta kaga baxaya waxa jirta xaflad weyn oo qiimo leh oo aan ku qaban doono safxo magaalada safxo la yiraahdo waxaan ku qabanaynaa 24ka 23ka bishan insha Allah waa sabtideeda xafladda waxay imanayaan idin sheegay waxay imanaya team kubadda cagta ciyaaraya oo Somaliland waxay la ciyaarayaan team isu dhashay la ciyaaraya sharaf ma tahay sama waxay imanaya subaxii hadii ilaahay ka dhigo 10ka subaxnimo waxa ka doodaya Somaliland 17 kamuun oo isu dhanaa 17 kamuun oo isu dhanaa faa'iido maaha hadii ilaahay ka dhigo marka ay gaadho galabnimada haddana isla markaa waxa ka soconaya 7 hay'adood oo isu dhisha oo caawiya adduunka eeg 7 hay'adood dadii sheego erixiyal ba kamida human bridge ba kamida laakiin uu tangras ba kamida
waxa kamida sida kamidadaasi safqo oo ka doodaya si Somaliland mucaawanada hadda ay qaato loo badin lahaa ina taageero Soomaa miyaan ahayn waxay dambi waa hor taageerada ma jirto way ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa Somaliland ha guulaysato Somaliland ha guulaysato cadawgeedu ha jabo Somaliland ha guulaysato magaalada Yotobori ha guulaysato hablaheedu ha guulaystaan inamada firma ku goodanay hambalyo أنا ما أدري حسين إمكانه وحنا نسول وينيا ولا داير أو كم إذا المدحة الصومالي لان أهان شري قدوميها مدار كبرعه مركي دمنا نقضي قدوميها قبل هذا بري غيبها صورنا هيستي وعبد الرزاق سعيد كسولو سوونا سوال كاني نوبي ما دو لبكر مدود dowladda imika madaxweyne Silaayo oo hogaaminayo waxyaabaha ay soo kordhisay waxa kamid ah inay dhalinyaradi wadanka ay shaqo geliso mala ku soo taariibay u maaragtay kuwa madax ku soo dhaw bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam runtii farxad bay tahay inaan ku soo qayb galo munaasabada qaaliga ee xuska sanad guurada 18 weyn sanad guuradii 24 ee xornimada Soomaaliland waqtigii ay la soo noqotay madaxbannaanideeda waxaan ugu horeyn halkan ka salaamaya dhammaan marti sharafta iyo mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay madashan oo ay ugu horeeyaan guddiga jahriyada xildhibaanada deegaankan iyo dhammaan marti sharafta kala duwan iyo mas'uuliyiinta ka socota xisbigii halkan inagala soo qayb galay aad baan idinku salaamayaa salaanta islaamkana waan idinku salaamayaa waxaan idinku hambalyeeyaa xuska sanad guurada 18 May assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanta dib waxaan leeyahay xaqiiqadu waxay tahay kumaan helin xodxodashee xijir baa quwato waa loo xabaal galay hees bay ku jirtay qaran waliba astaan iyo xaflad iyo waxay heestaas oranaysaa qaran waliba xaraki iyo xaflad iyo astaan iyo xilliba u gaaray xuska May u soo baxa xurmeeyo dabaldega maanta waxaan dabaaldegaynaa maalintii Soomaaliland ay gobonnimadeeda la soo noqotay waxaan halkan hambalyeeyo bogaadin uga dirayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland geesiyaasha amnigooda lagu seexday lagu soo tooso waxaan ku xigsiinayaa qolayaasha dawladda ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisa iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaan marka hore ugu hambalyeeyaa shacabka reer Soomaaliland maalinta 18 May oo ah maalintii runtii ay ka soo afjarantay gobolada Soomaaliland kalalaasihii iyo qaskii muddada ka soo taagnaa waxaan leeyahay hambalyo waa maalin runtii 18 May 91 ilaa iyo maanta ay dadka goboladaas ama dhulka Soomaaliland ku nool ay yihiin dad ku nool nabadgeliyo lafahoodii iyo dhiigoodii iyo naftoodii la kala badbaadiyey runtii waa wax la isugu hambalyeeyo oo ah qof kasta oo Soomaali inuu u firiyo taageero iyo hambalyo ah wada noolaanshaha iyo is-ixtiraamka nabadgelyada ilaalinta qawaaniinta iyo dimuqraadiyadda ka hirgashay wax runtii loo hambalyeeyo weeye maalin mudan weeye loo hambalyeeyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baynu leeyahay hambalyo hambalyo kadib waxaan rabaa anigoo ku hadlay magacayga magaca xisbiga cagaarka matalayo iyo bulshooyinka reer Suudaan timid katiinkiina meesha fadhiyayba inaynu ka mid noqono horumarka ka socda deegaankaas
taageerno waxa ay keensadeen dadka u dhashay Somaliland ee ku nool Somaliland. walaalayaal runtii dadku way dagaalamaan, way isdilaan, way heshiiyaan, way kala go'aan, laakiin waxaa jira qawaaniin adduunka caalamka maanta u dhigan sida inuu ognahay taariikhdeena barayso. dadka Soomaaliyeed sidii uu Sheekh Saciid ka dhawaajiyey waxay ahaayeen dad isku dada, isku afa, haddii ku nool yahay Somaliland, haddii ku nool yahay Jabuuti, haddii ku nool yahay koonfurta Soomaaliya, haddii ku nool yahay dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya, dad waxay wiil, abti, adeer intaba ah. waxaa ku habsaday oo yimid dad ka fikir duwan, ka midab duwan, qaybiyey u qaybsaday qaybo kala duwan sidii la sheegay. ummadda Soomaaliyeed iyaga oo aan ka tabaabushaysan markay dadkaas u yimaadeen waxaa la geliyey nidaam ka duwan kii hore yaqaaneen. qolo walba meesheedii baa loogu yimi, waxaa la yaqaan Talyaani baa tihiin, qaal Ingiriis baa tihiin, qaal Faransiis baa tihiin. ujeeddada ka dambaysana waad ogtihiin oo 1886 markii ay raylu qaybinayeen waxay yidhahdeen dadka Soomaaliyeed ee xeebta dheer leh ee isku afka isku diintaas aynu ka yeelnaa waana dad runtii geesiin oo soo laaban oo dagaal iyo maxaan ku raadaaye ka baqin inay ka haybaystaan dad kale. waxaa la yidhaha inuu qaybsan qaybtii ninba meel baa lagu qaybiyey. gobollo badanoo maanta kala go-an ayaa moogtay dhinac la isu raaciyey. taasi waxay keentay in dadka reer Somaliland ay noqdaan dadkii ugu horreeyay nasiib u helay in calan Soomaaliyeed sidii la sheegay uu ka dulbabado oo sidaad ogtihiin baa suldaantima cabdimarkii calanka la saarayay uu sarreeyo ma nusqaamo bal siduu yahay aan eegne ka nasiib ka nasaar. arrintaasi waxay waxgaradkii iyo odayaashii iyo gabdhihii iyo hooyooyinkii waxay garteen inuunan xorriyaddaasi keligood waxba u tarin walaalahoodii kale bal ay doonaan. waxay yidhahdeen waxaan rabnaa shuruud la-aan inaan la midoobno walaalahayagii kale si aan u helno awood intaa aan nahay ka ballaaran kuna raadino kuwa naga maqan. marka waxaa rabaa aan uga danqay hadalka inaan dib u yeelo jadaaco maxaa qaybiyo kuwa maqan reebay xaggee bay ka timi. dad badan waxa laga yaaba inayna ogeyn xaggee ka timi. waxaad ogtihiin markii dalka Soomaaliya toddobaadkii la xorriyad baa la siinayaa SWL ay ka dacwootay UN iyo meelo badan in odayaashii Soomaaliyeed loo soo jeediyay la yidhi waayo xorriyadda shanta Soomaaliyeed baa laydin siinay yaa laydinku dhiiba ma Ingiriis mise Talyaani yaa 10 sano idin gaarsiinay. odayaashii Soomaaliyeed ee markaa joogay oo u badnaa reer koonfureed waxay yidhahdeen Talyaani baan rabnaa. Talyaanina wuxuu ahaa dowlad markaa dagaalkii labaad looga adkaaday fashistiya jabtay aan awood badan ku lahayn caalam. Ingiriis wuxuu soo jeediyey war aniga doorta oo aan idin hayo shanta Soomaaliyeedna aan hal mar xorriyad siiyey. waxaa la yidhi ninkan waa nin xoog badan, dowladihii adkaaday weeye, naga tegi maayo, waxaanu doonaynaa Talyaani. taas ayaa waxay kartay Ingiriis inuu fiito soo roga ah isagoo kala degdegaya arrintaan ogeed inuu siiyo Somaliland xorriyadda, Soomaalida Itoobiya ku wareejiyo, Kenyana Kenya ku wareejiyo. maanta Somaliland arrinteedii qadiyadeedu yay ka go'daa inay dal madax bannaan noqoto. waxay ka go'daa walaalahooda Soomaaliyeed ee kale inay la fadhiistaan, waa isku af, waa isku diin, waa walaalo. war haddaynu siyaasadda isku fahmi weyne sidanayba laga yaabaa inay noogu darar badisee walaalayaal aynu isla saxnay inay yidhaahdeen sidii la sheegay wada hadalkaa la wado laguna moogtahay adkaado qaabkii maxaan ku raadayay wada hadalkaasi uu ku midha dhalin lahaa loona heli lahaa dad iyagoo raalli iska ah oon isnacbayn
sidaas moogtay arrimahoodii ku dhameeya beesha caalamkuna ay sidaas markaa kadib markay Soomaali iyagu heshiiyaan way ku qasban yihiin inay aqoonsadaan madax bannaanida waxay ku heshiiyaan waxaan leeyahay marka in badan waxa la yiraahdaa laga raadiyo beesha caalamka moogtay waxa la yiraahdo madax bannaanida Soomaaliland laakiin aanu talaha waxa war lahaa Soomaali dib isugu noqoto sida la sheegay hawada hadleen waxay isu yihiin iyo isu sheegayaan hadday siyaasadda isku garan waayeen maanta Soomaali xaqiiqda marka loo hadlo Djibouti waa Soomaali waan ognahay dadka Soomaaliyeed way u halgameen maanta wax badan bay tareen markay soo jabeen Djibouti meelaha ku nasteen bay kamid tahay Somaliland meelaha ku nasteen bay kamid tahay Soomaalida Itoobiya meelaha ku nasteen haddii ay kulligood wada qeybin lahaayeen isu ciirsatay noqon lahaayeen rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan marka hore u mahadnaqayaa Ilaahay isugu keenay intan oo qof oo caafimaad qabta mar labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaheena Jamhuuriyadda Somaliland Ahmed Maxamuud Silaayo waxa kaloon u mahad celinayaa maan hambalyo halkan uga dirayaa labada xusbi macaarid waxa kaloon mahad celinayaa dhammaan shacbiga Somaliland ee maanta halkan intay hortaagan iyo inta meediyaha iga daawanaysaba waxaan idin leeyahay hambalyo waxa gaadheen guul waxaad tusteen caalamka inaad tihiin dad shaqaynaya oo runtii u soo taagan maanta in ay adduunka wax ka noqdaan waxaan u malaynayaa Maxamuud Dayiba runtii intii badan hadalkeeda yiri xataa markaan anagu xagga siyaasadda aan ka hadlayno runtii hadalla aad u culus buu yiri intii Ilaahay kaga duway waxaan kaga baxayaa intaas hambaliyadii Somaliland ka soo wareegtay 24 guuradii oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay runtiina waxaan u malaynayaa in history markii ugu horeysay magaalada Yotobori ay ka soo qayb galaan xildhibaano aan ahayn Soomaali oo runtii danaynaya qadiyadda Soomaaliyeed ama Somaliland aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadka igu soo casuumay ee caawa fursadan ii siiyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادات ومهتسي إمك قبل دي بينو قادني عدة إنه سوق إنه صحيح سواحن بسم الله horta السلام عليكم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهله وسوقا كيني ماشان أنا كحسينا مانتا qarannimada Somaliland oo ka soo wareegday 24 sanadood anigu Somaliland kamala 6 sano baan ka weynay markaas dadkii baan filayaa taariikhda Somaliland waxaan ku qaatay dugsiga hoose marka macnaheedu waxa weeyaan Soomaaliya anigu ma arag calan Soomaaliyeedna ma arag marka waxaan idin leeyahay hambalyo haddaan iskiin baro anigu waxaan ka socdaa jaariyadda Mareykan gobolka Washington Seattle Washington waxaan gudoomiye wahay urur samafala oo haldoor organization la yiraahdo oo dhalinyaro reer Somaliland maanta dhan waan daawanayo wax ka hadlaya samafalka maan arag iyo haweenka wax amaanaya maan arag iyo ciidamada qaranka Somaliland wax amaanaya maan arag haweenka Somaliland aad iyo aad baan u hambalyeynaya last year waxaan joogay Hargeysa sanadkii hore wax badan mid dalka ka qabtay hooyooyinkeen Ilaahay hadaayo waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya gudoomiyaha jaaliyadda Kontebeg Muwarig oo casuumadan ii fidiyay waxaan kaloo aan salaamayaa Xuseen Wadaadire gudoomiyaha xigeenka jaaliyadda guud ee Somaliland xildhibaan Dayib xildhibaan Safiya dhamaantiin aad baan idin salaamaya mar labaad ururka haldoor organization haddana idin fasilo waxaanu qabanaa waa arrimaha samafalka wali waxaan ka shaqeynaa gobolka Hargeysa Maroodijeex ceeb ma aha inaad ka shaqeyso gobolkaaga
qof walba degmadu ka yimid iyo gobolku ka yimid inuu caawiyo dadka baahan uu garanayo ceeb maaha waxaanu qabanay muddo 3 sano oo shaqeynay laas yar Hargeysa joogay dadka naafada ah ee indhaha la ama agoomaha ah ee ku jira xarumaha agoomaha baanu caawinaa dadka reer guuraaga abaaru ku dhacaan baanu caawinaa sanadkii hore markaan tagay 100 reer baanu raashin u geynay oo degan hawdka Hargeysa agoomaha ku yaala xarumaha Soomaaliland dhar baan u geynay ciidii waan la ciidnay wallahi waxaan xasuustaa gabadh reer Soomaaliland haweenkan la hadlaya oo aan guri ku qaraacnay waan raashin u geynay ciidii 2 cisho ka hor waxay nagu tiri 2 cisho xamaan karsan wala daaga inaguna maanta Tayban xidhanay suud wallahi waan weeyo wallahi marka waxaan igu dardaarmayaa in dadkeena ka war haysaan inuu gudoomiyaha yahay abwaan mubaarak ku soo dhawow abwaan u baaban kooga imka gudoomiyana mar hadduu ku darsaday waa ahna waxa halkan imika inoogu diyaaraa oo markiiba iyaguna soo geli doona koox hidiya dhaqana oo la yiraahdo cisi oo ciyaaro fara badan aad iyo aad inoo raali gelin doona oo qabar sanaacidii aan oran karo oo aan kuba tilmaami karin wax kale ku soo dhawow gudoomiyaha aad waxaan ugu mahad celinayaa Sheena Cismaan Raabi aad baad u mahadsantahay shaaliyada sharafta leh ee reer Soomaaliland rag iyo haween gabdho iyo wiilal oday iyo islaan inan aad baan idin salaamayaa xubnaha marti sharafta ee ka socda xisbiga Milya Baltiyeed oo ah Safiya Umar Maxamuud Dayib iyo Ayman Aduf aad baan u salaamayaa waxaan ugu hambalyeeynaa kalsoonida dhiiranaanta ka soo qaybgalka qiimaynta tixgelinta iyo wanaaga ay tuseen jaaliyada reer Soomaaliland ee ay kala qayb qaateen munaasabada 24 guurada la soo noqoshadii qarannimada Soomaaliland oo ah mid ku suntan taariikhda ma doonaya caawa aad baa loo hadlay waa daalantihiin wax fala badan baa sugaysaan anigu waan hadal badanahay laakiin caawa hadli maayo sababta aanan u hadlaynin intii aan oran lahaa waa la yiri imikana waxaan la taaganahay gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliland ee magaalada Gothenburg ee Mubaarak Qorbaxay ee Mubaarak ku soo dhaw telefishinka Home Cable ee caawa gudoomiyaha xafladda waxa gudoomiyaha jaaliyada maxay tahay xafladda jaaliyada soo qaban qaabisay jaaliyadana madax baad imika adigu tahay balka waran sidee bay idinku dhacday 18 May aad iyo aad baad kugu mahad celinayaa Khadar Shani iyo Home Cable television oo ah telefishinada ee dadka af Soomaaliya ku hadlaya aad u xiiseeyaan mar labaadka waxaan u mahad celinayaa jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan Gothenburg mar labaadka waxaan u hambalyeeynaa shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan sanad gudaha 24 ee ka soo wareegtay qarannimada Soomaaliland markii Soomaaliland iyo shacabkeedu ay dib u soo noqdeen ayna burco ku go'aansadeen inay noqoto dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn dalkii Soomaaliya la oran jiray taa markaan ka imaado waxaan u gudbayaa su'aashaadii weydiisay ee ku saabsan in qabanqaabadii xafladan runtii waxay ahayd xafladaadii aad u qiimo badan oo ay ka soo qayb galeen dad ajaanib ah oo mas'uuliin xisbiyada wadankan ka tirsan ay ku jiraan oo qaarkood Soomaali ay yihiin oo dad af Soomaaliya ku hadlaya yihiin qaar wadamo kale oo ajaanib asalkoodii ay ka soo jeedaan laakiin ay yihiin dad mas'uuliin oo wadankan Soomaaliya ka tirsan sida arkaysay waxa ka soo qayb galay fanaaniin dhaqanka asal oo ah waxa ka soo qayb galay muxuu ahay toy hal abuuro kale waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin waxa ka soo qayb galay saxaafadda oo qaybaheeda kala duwan aad arkayseen taasi waxay muujinaysaa heelanaanta dadku ay u heelan yihiin iyo shacabka reer Soomaaliland baahida ay u qabaan in ay helaan meel midaysa sida awoodeed maadaama aanu nahay guddiga cusba ee imika loo magacaabay aniguna aan jaaliyada gudoomiyaheedii ahay Soomaaliland ee Gothenburg waxaan aad iyo aad runtii ugu dadaalay inay xafladan ay noo qabsoonto maadaama muddo kooban meeshaan u joognay ilaahay dareenkaygu ma sha Allah aad iyo aad buu fiican yahay maxaa yeelay waxaan joogaa maalintii qarannimada Soomaaliland shacbi weynaha Soomaaliland ay go'aansadeen inay aayahooda iyo mustaqbalkooda ay dib u yagleelaan oo ay la soo noqdeen 1999 maantana ay marayaan 24 guuradii ka soo wareegtay maalintii xornimada marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaan rajaynayaa insha Allah taala mustaqbalka dhow meeyda xigta in la heli doono insha Allah ilaahay inuu gaarsiiyo bashwash iyo barwaaqo iyo
اعترافك الله حلو إن شاء الله أنا وبوجن بان كسر بندقي بوجني وحكوسة في سنة آفة تهريبتا أي أمضى الصوماليات قومية الصوماليات ملك استويتشوكتو أي أقرب قاعدة تمدو هذا كله أفرطن سنة ضد الصوماليين كتيرتي تهريب مركا أنا قلنا وحن كدياري بوجن مركا وحكشة كاين يا قصة دبقة ويو أنا وحن مري إنك بدنشان يطبعا ودان أيان تهريب كمري مركا وحكشة كاين يا قصة دبقة أو كصابسان دبعتوين كي شخصيا أنا جاي سو قاري أنت أن كتيري سفر كان iyo kuwii aan dacwooyinka aan goobjoog u ahaa iyo waxyaabihii aan ku arkay dad dhulkii aan maray intaas saddex qodob ayuu ku kooban yahay marka dhibaatada aafada tahriibtu waa dhibaato aad u fara badan dadka Soomaaliyeed ee ku qalab qaatay tahriibku waxay ku safraan saddex wadada koobaad waxa weeyaan waxay ka tallaabaan biyaha badda cas iyaga oo sii maraya iyagoo beegsanaya wadamada khaliiska qaatan Sacuudi Carabiya biyaha badda cas intay ku sii jiraan waxa ku nafaya dhalinyaro fara badan hooyooyin iyo aabayaal badan ayaa ku waayay qaar kamid ah ubadkoodii jidka labaadna waa jidka dheer ee Koonfur Afrika jidka intay ku sii jiraan waxay la kulmaan kufsi iyo dhac iyo xabsi inta Koonfur Afrika gaadhaana nabad ku gaadhaana waxay la kulmaan dhac iyo dil aan joogto lahayn oo aan kala go'o lahayn jidka saddexaad waa jidka ugu khatarta badan leh ay dadka intiisa badan soo maraan waa saxaraha u dhaxeeya Liibiya iyo Suudaan ee adduunka ugu weyn ee la yiraahdo Sahara al-Kubra saxarahaas ay soo maraan kadibna Liibiya iyo maadaama Liibiyana waxay ka soo raacaan doonyo iyo laashash aan loogu talagalin inuu bini'aadamku ku safro halkaana waxay ku waaya hooyooyin iyo aabayaal badan ayaa ku waaya qaar kamid ah ubadkooda marka buugu intaas ayuu waxaad ka soo qayb gashay 18 May bal ka waran dareenkaaga iyo shucuurtaada caawa maalintii qarnimada Soomaaliland xorriyadda dib loo soo noqotay baad joogtaa bal ka waran alxamdulillah dareenkaygu aad buu fiican yahay xaflad aad u wanaagsan bay ahayd aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo insha Allah marka macla hooyada wadabaan maleynaya hooyada wada waa tas salaam calaykum hooyo calaykum asalaam caawa waxaad timi 18 May waa ka soo qayb galay waana qurux badnay way dareenkaaga hooyo ka waran adiga sidee u aragtaa xafladan waa iska waa fiicnay adna waa fiicnay xafladuna waa fiicnay adnan caawa 18 May baad timid bal ka waran sidee u aragtay 18 May see u dhacday wallahi si qurux badan bay u dhacday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay tahay maalintan xornimada qaadanay aad iyo aad baan u dabaaldegaynaa si aan soo koobi karin marka ay diinmiga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan u dabaaldegaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la dhahaa Maxamed Mahdi Ciise كل والله درين كيجو آد بو كحسنية هاي مادام أو هاي استدلال أفريقيا جوردي 18 ماي الحمد لله رب العالمين عاودن كسويدن جرهان جوتنبرغ والله سي أن عادي هين بينوجود على حفلة ما شاء الله إلهي نوح كبرنا إن سنة كسنة كيسة وفرحت يا عمر داري عفماد مد سومالان كوجارسيو إيو محل هذا إيو أنتي كلام إن شاء الله بإذن الله تعالى waxaan kaloon halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba salaada aan la soo koobi karin waxaanan leeyahay insha Allah taala ilaahay farxadaha inuu gaarsiiyo si fiican baan inoogu dhacday kullee anaga xafladeedii gaar ahaan haddaan reer Youtube ama Gothenburg ama Göteborg kolba sidaad u taqaaniin waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaanu kor u sii qaadi doono sanadaha soo socda sanadka soo socdana waxaan islaanay insha Allah taala hadii ixtiraafku yimaado in aanu kulay waxyaalo badan ku muujin doono Rahmaanir Rahiim magacaygu saddexan waayaan Axmed Maxamed xafladda ay timid baan ka soo qayb galay maanta aad baan u faraxsanahay si fiican baan inoogu dhacday halkan waxaan hambaliyo uga jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan inay farxad ku iidaan dhamaantood dawlad madaxweynaha iyaga waan u hambaliyeenaynaa waanu ciid wanaagsan baan leenahay shacabkayga dawladayada ciidankayga dhamaantayaba waa xaflad aad iyo aad u qaaliyo weeyaan ما شاء الله دمان أنا مقعد هرت مركب جوهر سوا محمد علي هذا قلال يلحظة هرجيش كيمدي مركب وده كيسول بانكون ورا إن شاء الله مركب حفلة آد بي وينتهي وحفلة آد يا دقالي ويان سيدا تردد ومدة رئيس المال لأنه وارمحمبليان يا حمبليان هالكن كدريا إن شاء الله وحنلاقي هاي دماتين جوليستا سيب عيد ما قرنكه
iyo golaha guurtidan aad iyo aad ugu sii mahad celinayaa insha allah أبا ما سنتي بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Axmed Muuse Axmed waxaan ku noolay dalka Suudaan magaalada Itoobiya gaar ahaan waxaan halkan ku soo bandhignay qadiyada Soomaaliland anagoo ku matalayna shacabka Soomaaliland anaguna aan nahay dhalinyaradii wadanka ee ubaxii soo dadkii soo halgamay dadkii dhaleen oo doonayeen inaan anaguna halkii ka sii ambaqaadno oo horumar gaarsiino waxa aan halkan ugu mahad celinayaa dadkii maanta gartay inaanu dareenkayga halkan maanta ku dabaaldegno oo dalkayga soo celino waxaan aad iyo aad ugu hanweynahay inaan dalkayga horumar gaarsiin doono waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya xisbiyada qaranka ee sida dimuqraadiyadda u tartama waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Salaan Gubeed waxaan la socdaa wax kasto dalka socda waxaan kaloo aad iyo aad u hambalyeynaya axsaabta golaha guurtida oo markasta asxaabta muran yimaado in kala dhaxgala waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxay horumar ku gaadhay waa wada hadal iyo isu tanaasul بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu عبد العزيز فارح عبدي waxaan ku noolahay wadanka Suudaan waxaan halkan dareenkaygu aad buu kacsan yahay dareenkaygu ma soo koobi karo dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa shacweynaha reer Soomaaliland meel kasta dunida daafeedka joogan